السلام عليكم يا خيار شرفت لك soo dhawaada kulali TV maanta halkan waxaan kugu soo gudbinaynaa toddoba goobood ay mamnuuc tahay dadka caadiga ah inay booqdaan waana goobo aad loo xadiday oo adagta qof shacabeen oo booqdo dunidan casriga ah oo dadka ku nool ay haatan ku haaminayaan inay dalxiis u tagaan hawada sare dhawaana la falayo in arintan la bilaabo sidoo kalena ay saalan tahay in qofka meesha uu doono adduunka u dalxiis tagi karo booqana kala goobaha taariikhiga ah ayaa haddana waxaa jira goobo dadka bini'aadamka ah ay ka caagan yihiin inay booqdaan ayna mamnuuc tahay inay qof shacab halkaas u booqdo ilaa qof loo ogolaaday ma ahane waxaan halkan kugu soo gudbinaynaa ilaa 7 goobood oo aan dadka loo ogolayn inay booqdaan ayna ugu wacan tahay khatar amni iyo arrimo xasaasi ah jasiiradda Masaska ee dalka Brazil jasiiradda Ilha de Queimada Grande ee dalka Brazil waxa ay ka mid tahay goobaha caanka ah ee aan dadka loo ogolayn inay booqdaan waa goob halis ah oo ay adag tahay in qofkii tagaa uu ka soo noqdo isagoo bad qaba ama caafimaad qaba jasiiraddan waxa ku nool masaska adduunka inta la og yahay waxaana lagu qiyaasay in mitir walba oo dhulka jasiiraddaas ah uu jiifo hal mas waxaana la sheegay inay yihiin masas marka uu qofka arko argagax gelin kara waxyeelayna kara naftiisa qofka bini'aadamka ah waxaana ka mid ah maska caanka ah nooca candhuufta tuura oo ah mas aan caadi ahayn dowladda Brazil ayaa xirtay jasiiraddaas kana mamnuucday in dadka ay booqdaan inta la og yahay dowladda dalkaas ayaa dadka cilmi baarista sameeyay oo kaliya u ogolaatay inay booqdaan jasiiraddaas kuwaas oo iyaguna la dul dhigay shuruudo adag oo ay ka mid tahay in ay la socdaan dhaqaatiir daweyn kara haddii maska uu qaniino oo waxyeelo kale soo gaarto khubaro arrimaha deegaanka oo ka socda jaamacadda Sydney ee dalka Australia iyo Salma Mare qaybta BBC-da ee dalka Brazil waxay sheegeen in jasiiraddan ay samaysantay 11,000 oo sano ka hor taasina ay keentay in duurjoog badan oo masas ah ay ku tarmaan jasiiradda hawdka ah ayaa dhanka xeebta kaga beegan magaalada São Paulo ee dalka Brazil meesha labaad ee adagta inaad booqato waa kaydka qarsoon ee kaniisadda Vatican-ka kaydka qarsoon ee kaniisadda Vatican-ka ee dalka Talyaaniga waa mid aan la ogolayn in dadku ay booqdaan kaydkan oo sida la sheego ku dhex yaalo dhismo weyn ayaa la aaminsan yahay in halkaas ay ku kaydsiin dukumeentiyo muhiim ah iyo kuwa taariikhi ah waxyaabaha la sheegay in halkaas ay ku kaydsiin waxaa ka mid ah waraaqo ay iswadaarsan jireen Vatican-ka iyo dadkii caanka ahaa ee soo maray dunida kuwaas oo ka mid yahay mu'allifkii caanka ah ee Wolfgang iyo boqoradii koowaad ee Ingiriiska iyo Adolf Hitler iyo dad kale oo caan ah oo taariikhda dunida qayb ku leh xogtaas oo ah mid qaas u ah baadari madhabta Kaatooliga ayaa ah mid ka caagan dadka adduunka oo aysan arki karin marka ay soo booqanayaan goobtaas cilmi baarayaasha arrimaha sayniska ayaa la sheegay in dadka kaliya dalban kara inay booqdaan goobtaas haddiise loo ogolaado waxa ay ku dhaqmayaan shuruuc adag oo ay ka mid tahay in aanay wax waraaq ah kala soo bixi karin kaydka qarsoon waxaa kale oo jira shuruuc dhigaysa in ayaga xitaa kuwa saynisyahannada aan loo ogolayn inay arkaan waxyaabaha qaarkood kaydka qarsoon ee Vatican-ka ayaa sidoo kaleeta ah meel lagu keydiyey xogo badan oo la xiriira Kaatooliga waxaana la sheegay inay ku kaydsan tahay taariikh gaaraysa ilaa qarnigii 8aad inta badan macluumaadkan ayaa ku kaydsan baqaaro dhulka hoostiisa ah waxaana ay ku fadhiyaan dhul gaaraya 85 kiilomitir oo isku wareeg ah xarunta saddexaad ee adagta inaad booqato waa xarunta lagu kaydiyo miraha dalagyada ku beeran adduunka waa sanduuq aad u weyn oo u samaysan sida qaboojiyaha laguna kaydiyo miraha dalagyada adduunka laga beero sanduuqan oo ku yaala gudaha dalka Norway waxaa hirgeliyay dowladda dalkaas waana goob lagu ilaaliyo miraha si haddii musiibo ama aafo kale ay dunida ka dhacdo loo helo kayd miro ah oo loo laaban karo laguna beer karo beeraha wargeyska The Guardian ee ka soo baxay dalka Britain ayaa ku soo waramay in sanduuqan oo ku yaala jasiiradda Spitsbergen ay ku kaydsan yihiin milyan baaldi oo midkiiba ay ku jiraan 100 milyan oo ah miro kala duwan kuwaas oo aad muhiim ugu ah dunida waxaana mashruucan la hirgeliyay sanadkii 2008 waxaa laga dhisay qalab ay adag tahay inay biyo ama waxyaabaha kale ay dibadda uga yimaadaan kadibna ay waxyeelayaan xarunta
xarunta looma ogola dadku inay booqdaan, waxaana sababta lagu sheegay sidii looga baaqsan lahaa waxyeello soo gaari karta mirahan abuurka ah ee meesha ku kaydsan. Sanduuqan waxaa ku dhan dhammaan miraha dalagyada laga beero caalamka, haddii ay ahaan lahayd khudaar, cuntada iyo dhammaan waxyaabaha laga isticmaalo adduunka. Sanduuqan ayaa loo nashqaday qaab uusan u dumin, adkaysigiisana uu gaarayo muddo 200 oo sano ah qiyaas ahaan, waxaana uu iska difaaci karaa wax walba oo dhibaato ku ah sida duufaanta iyo dhulgariirka iyo qaraxyada iyo waxyaabaha la midka ah. Miraha halkan lagu beera ayaa ka mid ah miro laga soo ururiyey dhammaan dalalka caalamka, waxaana dalalkaas halkaas wax ku kaydsaday ka mid ah Kuuriyada Waqooyi oo aan inta badan wax xiriir ah la lahayn dalalka caalamka markii laga reebo dowladda Shiinaha iyo dowlado dhowr ah. goobta afraad ee adagta inaad booqato laguna ogoleen waa jasiiradda Xabaashi ee dalka Talyaaniga. Bovaglia waa jasiirad yar oo ku taalla dalka Talyaaniga una dhexeysa xeebaha magaalooyinka Venice iyo Lido. Goobtan waxay horey u ahayd goob lagu karantiilo dadka qaba cudurka bubonic ee ka dhashay bakteeriyada, waxaana la sheegay in lagu karantiilay dad gaarayay 160,000 oo qof oo qabay cudurkaas, kuwaas oo markii dambe qaar badan oo ka mid ah halkaas ay ku dhinteen jasiiraddaasi. Wararka qaar waxay sheegeen in 50% carrada dhulka jasiiraddaas ay tahay haraadiga jirka bini'aadamka, maadaama sida la sheegay meydka dadkii ku dhintay cudurkaas ay ku qurmeen halkaas. Wargeyska Daily Mail ee ka soo baxa dalka Britain ayaa ku warramay in jasiiraddaas muddo haatan laga joogo 70 sano ay ahayd goob gumaysi Talyaanigu u ahayd xarun lagu hayo dadka qaba xanuunada dhimirka, waxayna keentay taas in dowladda Talyaaniga ay markii dambe xirto jasiiradda Bovaglia kana mamnuucda in dadka caadiga ay booqdaan halkaas. goobta shanaad ee mamnuucata inaad booqato waa qolka 39aad ee Kuuriyada Waqooyi. dalka Kuuriyada Waqooyi oo lagu tilmaamay inuu yahay dal go'doon ah kana go'doonsan dunida inteeda kale ayaa waxaa adag in wax badan lagu ogaado waxyaabaha ka dhex socda dalkaas. dalkan oo ay sidiisaba adagtahay in wax laga ogaado madaxda dalkaas iyo waxyaabaha ay qabtaan ayaa qol lagu magacaabo Room 39 waxaa la sheegay inuu yahay qol aanan cidna loo ogolayn inuu gudaha u soo gasho. wax badan lagama oga qolkan ku yaala magaalada Pyongyang, hase yeeshee dad aqoon u leh lana soo shaqeeyay xukuumadda dalkaas waxay sheegeen in qolkaas uu yahay goob ay si gaar ah ugu kulmaan hogaamiyaha waddankaas iyo saraakiisha militariga. Ri John oo ah sarkaal horey uga tirsanaa xukuumadda Pyongyang oo u warramay telefishinka CNN ee dalka Mareykanka ayaa sheegay in waxyaabaha kale ee lagu qabto qolkaas 39aad ay ka mid tahay meel lacagta loogu geeyo saraakiisha sarsare ee dalkaas. dowladda Mareykanka ayaa horey u sheegtay in qolka 39aad ee ku yaala magaalada Pyongyang lagu qabto howlo sharci darro ah. goobta lixaad ee mamnuucata inaad booqato waa Area 51 ee ku taalla dalka Mareykanka. aagga Area 51 ee ciidamada cirka ee dalka Mareykanka waa goob caan ka ah dalkaas oo loo yaqaan Area 51. hay'adda sirdoonka ee CIA ayaa markii ugu horeysay qirtay in jiritaanka goobtaas sanadkii 2013. inta badan goobtaas kama soo muuqato khariirada dalka Mareykanka, waxaana la aaminsan yahay in sidaas loo sameeyay sababo amni. goobtan oo qiyaastii 170 kilomitir u jirta magaalada Las Vegas ayaa sanadkii 1958 hay'adda atomikada Mareykanka ka saartay goobaha dadweynaha ay tagi karaan, waxaana gidaarka goobtan ku hareeraysan ciidamo hubeysan iyo sidoo kaleeto waxaa adag in diyaaradaha ay dul maraan goobtan iyagoo aanan wax fasax ka haysanin. way adag tahay in la ogaado wax ka dhex socda xaruntaas, dadkuna marnaba looma ogola in ay gudaha u galaan, oo waxaa gidaarada goobtan ku dhegan koronto dili karta qofkii u soo dhawaada iyo qofkii isku day inuu gudaha u soo galo. xaruntan waxay u dhowdahay saldhigga militariga ee Nevada oo ah meel lagu tijaabi jiray hubka nukleerka intii u dhaxaysay sanadihii 1950 iyo 1990, waxayna ku fadhidaa dhul dhan 3 milyan oo hektar. waxay dad badan rumaysan in dowladda Mareykanka ee xeradan ku hayso macluumaad ku saabsan suxuunta duusha oo la rumaysan yahay inay kaxeeyaan nooleyaal qalaad oo cirka ka yimid. waxaa ka mid ah waxyaabaha ay dadka ka aaminsan yihiin in qaar ka mid ah nooleyaashaas ay dowladda Mareykanka qabatay kuna hayso xaruntaas Area 51 ee Nevada. Aniya Jacobson oo wax ka qoray taariikhda saldhiggan ayaa BBC-da u sheegay in goobtaas ay ku rakaban yihiin qalab aad u horumarsan oo dowladda Mareykanka ay u adeegsato howlaha sirdoonka.
goobta toddobaad ee adag tahay inaad booqato waa jasiiradda Sentinel ee ku taalla waqooyiga dalka Hindiya. Jasiiradda Sentinel ee ku taalla waqooyiga dalka Hindiya waa hoyga dad asal ahaan halkaas lagu yimid, kuwaas oo qarniyo ku noolaa halkaas. Dadkan ma ahan dad doonaya in ay la macaamilaan dadka kale ee adduunka, mar walbana waxaa la sheegay inay dagaal kala hortagaan cid walba oo isku dayda inay halkaas soo booqato. dowladda dalka Hindiya ayaa dhammaan horay u joojisay isku day walba oo dadkaas loogu tagi karay kadib markii ay ogaatay khatar ka soo gaartay dad halkaas inay tagaan horay iskugu dayay, qaarkoodna lagu dilay qaarkoodna lagu dhaawacay. sanadkii 2006 kalluumaysato isku dayay in ay gudaha u galaan jasiiraddaas ayaa la dilay. sidoo kale dalxiis u dhashay dalka Mareykanka oo isku dayay in uu tago jasiiraddaas ayay dileen dadkii ku noolaa goobtaas. dad badan oo isku dayay inay halkaas booqdaan ayaa waxay suurta kala kulmeen dadka Sentinel, lamana oga sida ay u nool yihiin dadkaas iyo dabeecadaha halkaas ka jiro. wax faahfaahin dheeriyana lagama hayo. khiyaarta sharafta leh, haddii video inay qanciyay iyo taariikhaha ay soo bandhiganaya macluumaadka, videoga like saara, siina share gareeya, channelkan subscribe si aad ula socotaan muuqaalada dambe ee aan soo geli doono. waa mahadsantihiin, wabillahi tawfiiq.